بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين بدا وضيال كسر دوادا ورئيسيغان oo aynu ku wareysan doono wariye Barraayil Kacaase oo dhawaan socdaal kaga yimid dawlad deegaanka Soomaalida isla markaasina inooga warrami doona bal xaaladaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida uu ku soo arkay waxa jirtay qayb hore oo wareysi uu kaga warbixinayay xaaladaha ee deegaanka Soomaalida haatanna bal mar kale ayaynu qaybtan ku dul istaagi doonaa xaaladihii uu ku soo arkay deegaanka Soomaalida الكعاسة صور دوانا يا ديجان كسوماليدا كتمت صعدال مدبل كل الوقاتي وعندنا كتكتي بالحالة جود ديجان كينوغور جود والله سنت هاي دواشنا وسلامنا قيب هراب بحدي كستو قيب تاس أي كديس هاي أو جامعة قلد ومارت كديس كقدي قيبتن وقيب كلا أو مارت اللحريرته ومسافر كي يو ديجان كوحيابي عن كسواركي iyo intii aan joogay dadkii aan la hadlay aan wareystay oo markaas aan inta badan weydiinayay deegaanka horay tusaale dawladii hore iyo tan hadda marka la isbarbar dhigo wax qabad ha noqoto dilkii iyo maaragtay dadkii xabsiyada lagu guri jiray iyo nolosha bulshada ugu horeyn haddii aan tusaale ka bixiyo dadkeenu sida ay u nool yihiin dadkeenu dad xor ah maahan wada Ethiopian hoos joognaa dadku dad si xor ah u fikiri kara ama si xor ah waxa weeye qofku uu waxa isaga ka soo go'ay uu ku dhaqaaqi karo maahan haddii uu ku dhaqaaqana wali waxaan jirin kalsooni oo qofkaasi ku kalsoon yahay naftiisa iyo waxaan markaa uu sameeynayo inay dhaqan galayaan ama waxaas u madax banaan yahay tusaale marka aan fiirino dadka deegaankeena ama guud ahaanba dadka Ethiopiaanka marka aad fiiriso waxa la baray qofku inuu san noolaan karin dawlad la'aanteed sax weeye dawladdu waa muhiim waa nidaam dalka iyo dadka kala haga weey oo shuruucda u taala lagu dabaqo laakiin qofka waxa la baray hadii dawladdaas la waayo ama uu dawladdaas wax ka waayo inuu san noolaan karin tusaale ahaan markaan tusaale soo qaato shimbirta oo kaleet ukun bay dhashaa ukuntaas waxa weeye guri buul bay u samaysaa oo waxa weeye ay ku dhashaa ukunta way xanaanaysaa way ilaalisaa ukuntu marka ay waxa weeye xilligii ilmaha laga soo saar lahaa ay gaadho iyo ilmaha ka soo saarta ilmaha markii laga soo saaro waa iska hilib waxa weeye malahan dhogor mar kale way si xanaanaysaa shimbirtu subaxii bay ka lahdaa waxa weeye quud iyo maaragtay wax ilmahaasi uu cunayo soo raadaysaa habeenkii bay soo dhalmataa waxay u keentaa wix ilmahaasi uu cuni lahaa halkaas ay ku xanaanaysaa ilmahaasi wali xilligaasi wuu soo koraya wuu weynaanaya muddo waxa weeye muddada ka dambaysa isbedel baa ku imanaya markii uu waxa weeye kobco uu kore uu baarimo yeeshay uu gabaaba yeeshay uu ogaado in uu dooli karo uu maaragtay uu wax isagu uu raasan karo markaas waxa weeye uu baxaa oo uu raasada wax isaga uu cuni lahaa maadaama markii hore waxa weeye hooyadii dhashay ay wax soo raadinaysay laakiin marka uu hilibka yahay ee wali garbaabo uu san dhogor yeeranin waxa weeye halkaas uu ku sugnaanaya hooyadii baa wax siinaysa tusaale waxaan soo qaadan karaa marka dadka dawladda Itoobiya hoos jooga waa sida ilmaha yarka ee aan garbaabada iyo dhogorta lahayn ee u baahan in hooyadii subax intay ka lahado ay waxa weeye u qaraab tagto oo ay waxa weeye u keento wixii uu cuni lahaa halka isagoo ku sugan oo uu san maartay meel u bixi karin xor ma ahan ma dooli karo wuxuu cuna ma raasan karo waa inuu halka ku sugnaada horta dadku waa sidaas oo kale tahay dadka reer Itoobiya oo dhan waa sidaas oo kale weeytay soo marka waxaan kaga soo wadaa qofka waxa weeye marka uu waxbarashada dhameeyo كو واحد وجوه الرأي وكفكريه وحويه إنه شقة دولة كهرو. وحركة إذا مركب قف وكلية هي وحويه بيش اللي صار فيه بان قلم جبيه ولا شقة مهلين. معناها اللي يابي كنت هايبة. حتى وحكم مكان قفك الدرقات كي إنه حوجا. ده كان مكان في السوق قفك وحلوش شقة ليسيا أنت بدن أو مدنانتك وبعد سيا قف مركو يهقف وحويه مدرسة شقية أو خبرة أولى شقة أو قبنا هي. مركا خبرة بالوش شقة ليسيا.
marka qofka khibradda lagu shaqaaleysiiyay iyo qofka markaas cusub mudnaan bay kala leeyihiin inta badan dadka marka waxa arkaysaa inay ka cabanayaan qofka markuu cusub yahay ee uu shaqo xafiiska u doonto in waxa weeye la weydiinayo khibrad intee leeg baad shaqadan u leedahay ma soo shaqaysay haddii uu cusub yahay marka caqabad bay noqonaysaa sababtoo ah mushaarkii uu baahnaa iyo shaqadii uu u baahnaa midna ma heli waxa laga yaabaa meel yar oo shaqo ah inuu helo taasna uu ka helo mushaar yar oo kooban oo uusan ku kalsoonayn oo maartay xitaa noloshiisii iyo qoyskiisii iyo maartay ehelkii iyo asxaabtiisii xitaa aan u wada qaybsan karin oo noloshii maartay uusan ku maareyn karin waa tahay bare adigu shakhsiyan deegaankaad ka soo jeedaa laakiin waxaan ogahay inaad Kenya wax ku baratay deegaankii markaad ku laabatay dadkina aragtay inay sidan u fakarayaan waxyaabihii kula yaabka badnaa maxaa ka mid ah walaade hadda waxyaabaha macnaha aad markaad tagto aad dadka aad wareysatay dhalinyarada xitaa wax baratay markaad la kulantay ee aad wareysatay su'aalo weydiiso qariibka ee aad la yaabayso waxa ka mid ah qofku inuusan ku fikiraynin in uu si xor ah intuu u fikiro inuu xitaa uu ganacsi sameeyo oo waxa weeye intuu fikiro oo uu hal abuur la yimaado in bal uu xitaa miis meel u dhigto sababtoo ah marka aad fiiriso dadka waxa weeye ganacsiga sameeya dadka lacagta leh qofku inta badan meel hoos ayuu ka soo bilaabaa waa jiraan dad waxa weeye looga dhintay laakiin xitaa kan dhimanaya meeshu wax ka soo bilaabay waa meel aad hooseysa weey qof baa shaqaalaha hotel sida waiter oo kaleete ka soo bilaabaya wax soo u wada marka dambe qofkaas si milyaneer iyo taajir buu noqonaya marka ma jiro qof waxa weeye hal mar intuu soo dhashay dhaqaale fara badan intuu helo ganacsi sameyn kara laakiin qofka waxa loo baahan yahay inuu meel hoos wax ka soo bilaabi karo talaan qofka ardayga markuu jaamacadda dhameeyay intii uu dawladda wax ka sugi lahaa inuu xitaa waxa weeye ku dhiirado inuu hotel intuu tago uu ka shaqeeyo oo uu mushaar ka qaato si xor ah waxa weeye uu shaqeysto haddii uu dawladda shaqo ka helana waxa weeye oo mushaar ku filan helana waxa weeye waa alxamdulillah oo waxa weeye waa fursad weeye haddii uu ka waayana inuu qofkii uu shaqeysto oo uu fikiro hadda deegaanka maalin kasta waxa qalin jabiya waxa weeye intaas oo kun oo ruux hadda maalin dhaweyto jaamacadda qabri dahar waxa ka qalin jabiyay kun iyo intaas oo boqol oo arday oo rag iyo dumar isugu jira oo mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaan ay ka soo qayb galeen xafladoodii oo dadkii maartay dhalinyarada la dhiirigelinayo oo la bogaadinayo oo loo hambaliyeenayo kun iyo dhowr ka boqol ee arday ee jaamacadda qabri dahar ka qalin jabiyay intooda badan ama boqolkiiba boqol dhamaantood waxa laga yaabaa inay ku fikirayaan in ay waxa weeye dawladdaas ay shaqo ka helaan waxa aad u yar ama aan jirinba qof ku fikiraya in waxbarashada xitaa inuu dadka uga faa'iideeyo in waxa weeye inuu si tabarucaad xitaa inuu iskuul u akhriyo caruurta uu maartay uu waxbaro in uu intuu si xor ah u fikiro isaga hal abuur la yimaado oo waxa weeye isagoon dawlad wax ka raadin isaga inuu maartay uu wax sameyn karo miis inuu meel dhigan karo in uu maartay adigu xun hal abuur intuu la yimaado in isaga uu maartay dhaqaale sameyn karo inuu ku fikiro yaa aad u yar dadka marka way iska daba wareegayaan deegaanka marka aad fiiriso xafiisyo kala duwan iyo wasaaradaha jira xafiisyadaasi dadka deegaanka marka aad wareysato xafiiska inta badan dhaliilaha iyo cabashooyinka ugu badan ay ka imanayaan waa xafiiska shaqaalaha iyo xuduudda xoog inta badan dadka ay ka cabanayaan oo qaarkood ay ku leeyihiin wasiirkii ma helaysid mar waxa lagu leeyahay shir buu ku jiraa mar safar buu ku maqan yahay xafiiskiiba ma joogo waxa weeye dadkiina waxa weeye ayaga oo waraaqahoodii wata iyo xafiiskii maalin walba ay hortaagan yihiin arintaas dad mas'uuliyiin oo madaxtooyada ka tirsan baan la wadaagay markii aan dadka wareystay ee cabashadaasi waxa weeye soo gudbiyay wasaaradda inta badan laga cabanayo ee dadku ay ka cabanayeen wasaaraddaas waana wasaaradda ku shaqale weeye waxa weeye wixii shaqaaleysiin ah ee dadkii maartay wax soo bartay ee dawladda shaqo uga baahnaa maadaama dadku aysan jirin soos kale ama meel kale oo dakhli uu ka soo galayo oo waxa weeye ay dadku dhaqaale haysaneen oo dadku inta badan dawladda ay ku tiirsan yihiin xafiiskii loo idmaa dadkii inuu shaqaaleysiiyo ya inta badan waxa weeye cabasho ay ka imanaysaa kuwa waliba marka shaqeeya ya iyaguna waxa weeye cabasho maartay intaas waxa weeye soo gudbinayo oo aan arkay waxa weeye shaqeeyo oo dawladda ka shaqeeya oo iyaguna isla xafiiskaasi maartay ka cabanayay xagga caafimaadka kale iyadana marka aad fiiriso waliba guud ahaan Ethiopia guud marka la fiiriyo deegaankeenuna waa ka sii xag jira oo deegaanka Soomaalida mar walba marka la fiiriyo Ethiopia kale waa uu ka sii liita waa uu ka sii hooseeya inkastoo Ethiopia dhan marka la fiiriyo caafimaadkeedu uu yahay mid aad isaga liita oo marka aad fiiriso dadka
qofku markuu xanuunsado inta badan waxaa dhici karta qofku inuusan helin dhakhtarkii khabiirka ahaa ee caafimaadka si fiican ama si wanaagsan u barta ee qofkan daaweyn lahaa ee xanuunkiisa sheegi lahaa ee dawadii qofkan uu qalmay u qori lahaa haddii qofka qaliin lagu sameynayo qofkan habka loo qalayo iyo maaragtay khubaro caafimaad oo khibrad u leh oo qali lahaa inuu waayo tusaale hadda waxaan arkay dagaalka galbeedka city mar dhexdaas ahayd oo u dhacayay oo dagaal culus oo dhacay oo waxa weey aad la isugu laayay oo dagaalka marka ugu cuslaa inuu ahaa ciidan deegaanka ah oo ku dhaawacmay oo waxa weey qaarkood caloosha dhaawacyo ay ka soo gaareen oo qaabka loola tacaalay waxa weey daryeelkooda caafimaad aad yaabayso oo intii la toltay aad u maleynayso waxa weey bahla dhigi jiray maxaad oo gadbadaha lagu tiri jiray markii raashinka beeraha la goosto yaad moodaysaa caloosha qofka waxa lagu toltolay oo yaabaysa de waa macnaha waa argagax ku noqonaya oo isleedahay wadankan waxa weey caafimaadkiisa waxa weey aad u liitaa oo khubaro caafimaad oo waxa weey aqoon iyo maartay waxa weey khibrad caafimaad oo durugsan u leh maba jiraan ma dhihi kartaa qaabka loo talo qofka loo talo yadii markaad fiiriso hadda kii markaan joogno qofka dumarka marka laga dhalinayo dumarka qaar ee ilmo maartay waxa weey oo laga dhalin waayo ee foosha lagu adkayo qalitaan lagu sameeyo qalitaanka markii lagu sameeyo qofku waa la taa marka qofka ma mooysid waxa weey in maartay qaarkoodna qola wala saaraa ma mooysid qofka in maartay qalitaan lagu sameeyo kama muuqanaysa laakiin halkaas caafimaadka marka fiirdiyaanka inuu ka sii xaq jira aad buu liitaa xarumo caafimaad waxa tagaysaa waxa weey shaqaalaha jooga ay yihiin kuwa aad maartay tiradoodu ay u kooban tahay oo maamulka xitaa maartay xarunta caafimaadka aysan joogin isxilqaan iyo maartay lixjeceladii dadka ya meesha ka maqan iyo qofku inuu meeshiisa u hagaajisto waxa weeye xaruntan caafimaadka inuu maartay la socdo wixii ay u baahan yihiin in maartay dawladii ay u gudbiyaan in dadkii la keenayo daryeel caafimaad oo waxa weeye hufan in loo fidiyo marka waxa maqan marka lahaanshihii lixjeceladii wadanimadii in badan oo kamid ah dadka deegaankana waa ay ka maqan tahay qofku marka waxa uu isaga shaqeeyaa in uu maartay mushaar iyo dhaqaale iyo dakhli in uu helo waxa ka maqan qofku maartay si iskiisa xitaa in uu shaqeyn karo xitaa isagoo uu mushaar qaadanayo in waxa weeye dadkiisa uu ugu adeego si maartay waxa weeye wadaninimo iyo maartay daljacayl iyo daljacayl ay ku dheehantahay qofku marka maxay galay waxa uu shaqeynaya hadii uu mushaar helo waxa laga yaabaa inuu maartay waxa weeye mushaarka uu ku fikirey laakiin uu ku fikirin dadkan sidii uu daryeel caafimaad oo hufan oo waxa weeye dhab ah oo ugu fidin lahaa marka caafimaadka marka la fiiriyo deegaankan waxa weeye waa uu liitaa aad buu liitaa haddii aynu bal ku yar laabano ganacsiga oo aad mar hore carabka ku soo dhufatay inkastoo isbedel deegaanka Soomaalida ka dhacay oo dhanka siyaasadda iyo maxaan ku yiraahdaa dilkii iyo xarigii badnaa iyo wixii xoogay ay sidii hore ka duwan tahay dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga markii la eego waxaan xoogaal u ahay dadka Soomaaliyeed wali deegaanka ku ganacsaday inaysan ganacsiga aysan xor u ahayn oo waxay rabaan aysan kala soo day karin meeshay doonaan arintaas iyada ah ma kala hadashay mas'uuliyiinta dawladda la kulantay sidaas hadda u koor gashay xaaladaas oo ahayd gurdo ma santahay horta deegaankeena sidaan horeyba kuugu sheegay deegaan xor ah maaha Ethiopia iyo hoos jooga waa deegaan waxa weeye gumaysiska hoos noolaa muddo welina ku hoos nool oo dadkiisu aysan waxa weeye ama shacabka noqoto ama dawladda noqoto aysan si xor ah u fikiri karin wixii markaas waxa weeye deegaankooda iyo dadkooda waxa weeye dan u ahana aysan ka shaqeyn karin oo marar badan caqabad ay ku noqonayso hadii waxa weeye qofka xitaa oo waxa weeye intuu maartay damiir iyo dadnimo isu yeelo oo waxa weeye hawlo noocaas ku dhaqaaqo caqabad lagu noqonayo ganacsiga kale markaad fiiriso deegaanka hadda dad badan baa yimaadeen oo reeqooy iyo reebari oo Soomaali ka yimaadeen oo waxa weeye iyagu dad iska xor ahaa oo ganacsan jiray oo waliba aad dhaha ganacsiga marka loo deegaankeena waxa weeye aad waxa weeye hadda si xor ah uga dhaqdhaqaaqa oo ka ganacsada maadaama deegaanka waagi hore uu iska xirxirnaa oo dhibaatooyin ay ka jireen hadda isbedelka kadib maadaama uu nabad noqday dad badan waxay ku dhiiradeen inay xuduud ka soo laabaan oo deegaanka ay yimaadaan oo ay ka faa'iideystaan maartay fursadihii ganacsi ee deegaanka ka jiray maadaama dadka deegaankeena ay ahayn dad iska hurda oo la gumaysan jiray oo si xor ah aan u fikiri jirin hal abuur ganacsi aan lahayn dadkii xuduudda ka soo laabay ka faa'iideystay ganacsiga marka la dhaho oo aad waxa weeye deegaanka marka aad fiiriso dadka waxa weeye deegaanka
jooga ee ka yimaada waqooyi marre waqooyi ama bari ka yimaada wada Soomaaliga luqada markaas waxa weeye ay ku hadlayaan qaabka u hadlayaan ay ka dareemayso dad deegaanka u dhashay inaysan ahayn aad bay uga faa'iideysteen sababta keentana waxa weeye dadka Soomaaliya ka imanaya waa dad xor ah oo si xor u ganacsan jiray way oo wax cabsi ah aysan jirin iyo maartay wax markaas waxa weeye iyaga u didinaa inay si xor u ganacsadaan oo halbuur ganacsi ay maartay la yimaadaan oo ganacsigooda ay hormariyaan oo dhaqaale ay sameeyaan markii deegaanka nabad iyo isbedel uu ka dhacay nabadgelyo noqday waxa weeye dadku ay ogaadeen in si xor ah waxa weeye ganacsigooda ay u geyn karaan ama ay ugu iibgeyn karaan waxa weeye gudaha deegaankeena iyo waxa weeye xaqan ay u soo jabeen oo ay ka faa'iideysteen fursadihii ganacsi ee deegaankeena yaale dadkeena marka wali kuma baraarugsano isha ay ka fiirinayaan dadkeena waxa ku qufulun qofku dawladdaas in waxa weeye wax ka helo haduu weyn yahay iyo haduu yar yahay haduu rag yahay haduu dumar yahay qofku waxa weeye waxa uu wax ka fiirinaya dhaqaale uu ka sugaya ee nolol uu ka sugaya waa un dawladda inuu wax ka helo waa waliya sababtoo ah waxaad arkaysaa qof weyn oo 70 sano jir ah oo nin weyn ah oo lagu leeyahay waxa weeye oo aad waxan baran wax uu bartay oo Ilaahay abuurtay ma jiro xafiisyo buu ku qoran yahay oo ka shaqeeya mushaar waa uu qaataa sababta keentana inta badan waxa weeye un dadkani qaabkii waxa weeye loo gumeystay iyo sidii ay u noolaayeen baa keentay in qofku uusan waxa weeye marnaba u fikiri karin si xor ah iyo in isagu wax sameeyo taa bedelkeedana dawladdaas uu wax ku sugo mushaar uu ka sugo in la shaqaaleysiyo uu ka sugo oo waxa weeye jeebka dawladda waxa ku jiro waxa weeye noloshiisa uu ku xiro waata arintan rabo inaan dul istaagtaa waxay tahay waxa jira ciidan la yiraahdo financiga oo ugaarsada maxaan ku raahdaa markii ay qabtaan wax allaaliya waxay haystaan ka qaata haweenka danyarta ah ee wajaala iyo meelaha xuduudda ah caalalada iyo kabaha iyo boorsooyinkii waxyaabaha yaryar ka soo gada tan ka hadlay marka waxa weeyaan dhibaatada ay ciidankaas ku hayaan hooyooyinka masaakiinta inta nacfi ka dayay ganacsatada waaweyn iyaga halkan iyo dhigba ama xaq xuduudaha ka soo talaabaan ama horay deegaanka u sii joogaan dhibaatadaas haweenka Soomaaliyeed haysatay ciidankaas federaalka ka yimaada xitaa ciidan Soomaaliyeed inay ahayn barxoogaal ah iyadoo ma u kurgash horta Ethiopia inta badan waxa ka jira wax la dhaho contraband oo inta badan waxa weeye waxa adag qofku waxa weeye in uu soo galiyo dalka waxa isagu markaa ku ganacsanayo sala dharka markaan soo qaadano kale xaqana marka la fiiriyo aan ku sheegay oo markii waxa weeye deegaanka ama Ethiopia isbedelku ka dhacay waxa aad u batay dadka ka imanaya dhankan Soomaaliya ee waxa weeye deegaanka soo galaya ee fursadaha ganacsi ee ka faa'iideysanaya way jirtaa marka deegaankeena si guud markii la fiiriyo ciidan federaal ah oo jooga aad buu ugu yaryahay meelo kooban been inta badan hadda ay joogaan waxa xuduudaha iyo deegaanka intiisa badan ka hawlgala iyo magaalooyinka markaad ka baxayso iyo markaad galayso waxa way baaritaanada sameeya waa ciidan Soomaaliya waxa aad ugu yar waxa way ciidanka militariga sababtoo ciidanka militariga dawladda u baahatay dagaalkii waqooyiga Itoobiya intooda badan loo daadguriyay marka ma jiraan ciidan tayo leh oo tiro leh oo aad arkayso oo meel degan oo militariga Itoobiya ka tirsan ma jiraan deegaanka intiisa badan waxa gacanta ku haya ee xuduudaha laga soo gala iyo meelaha waxa weeye ugu muhiimsan gacanta ku haya waa ciidanka deegaanka Soomaalida way ee noocyada kala duwan isugu jira marka caqabada noocaas hadda way jirtaa laakiin waana wax soo jireen ahayd way oo inta badan Ethiopia contraband baa la wadanka qofku si xor ah waxa weeye inta u ganacsado waxa ma soo gelin karo Ethiopia guud baa waxa weeye marna kala simanahay marna deegaankeena hadda waxa weeye wuba ka takooran yahay Ethiopia marka la dhaho marka waa wax weligeed ba Ethiopia ka soo jiray walina wuu sii jiri doonaa inta deegaanka Soomaalida hadda Ethiopia uu ku hoos nool yahay dadkan waxa weeye si xor ah inay u dhaqaaqaan oo si xor ah u ganacsadaan oo si xor ah u noolaadaan oo si xor ah u fikiraan waxa weeye lagama sugayo hadii ay waxa weeye saasi ahaadana sidoo kale ta xuquuqdii dadka Soomaalida ee deegaanka ay Ethiopia ama dawladda federaalka Ethiopia ay ku lahaayeen in ay helaan iyadana waxa weeye ma dhacayso ilaa la helo dad Soomaaliyeed oo mid ah oo waxa weeye muxaafid iyo mucaarad ba ay ka go'an tahay in si madaysan oo wada jir ah qadiyada ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka inta uga shaqeeyaan in xuquuqdii ay Ethiopia la hoosgeeyay ay hoos joogan ay ku lahaayeen si waartay wada jir ay uga raadsadaan ilaa oo la helo inta sidoo la yahay waxa weeye la kala ordayo waxa weeye xil loo kala ordayo waxa weeye saa loo kala qaybsan yahay la isjaajuusayo dadka Soomaaliyeed ee deegaanka marnaba laga ma yaabo
in Ethiopia waxa weeye ay xuquuqdii ay ku lahaayeen sida qoomiyadaha kale inay uga helaan marka waa wax jira weeye dadkan waxa weeye Ethiopia kale aad baan uga hooseynaa laakiin maanta deegaanka markii la fiiriyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye dadku uu ku naaloonayo waa nabadgelyada qofku waxa weeye markuu rabo ama marka uu waxa weeye doonayo uu safrayo meeshuu rabo uu safrayo wax caqabada iyo wax walwalaha wax cabsiha aysan jirin xilligii rabo uu soconayo meeshuu rabo uu seexanayo oo cid kula hadlay iyo cid ku dhibaateen iyo cid maartay su'aal ku weydiin aysan jirin waxaan isbarbar dhigayay dadka qurba joog baan deegaanka ku arkay magaalada Jigjiga inta aan joogay dad qurba joog ah oo qurbaha ka yimaad oo xilliga cabdin deegaanka iman jiray haddana waxa weeye yimaade yaan wax ka weydiiyay xaaladda deegaanka ko Jigjiga oo caasimada deegaanka dadku waxay ku sheegayaan in aad dadka hadda ugu soo bateen oo gobolada deegaanka laga yimaado magaaladii waa caasimada weeye la yimaaday waxbarasho iyo nolol loo yimaaday dadka kale ee Soomaalida ah ee deegaanada kale ka imanaya ee deegaanka ka baxsan iyagana inay aad u yimaadeen dadku inuu bato waxay keenaysaa fursado keenaysaa wax badan bay keenaysaa magaalada in caasimad noqotay keenaysaa wax badan oo maartay fikir ah iyo soo wax soo saar ba soo kordhay nin qurba joog ah oo qurbaha ka yimaada baan su'aal weydiiyay ku iri bal waxaad ka warantaa xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay iyo waagii hore saahan dawladii hore ee Cabdi markii aad iman jirtay wuxuu yiri maalin cad iyo habeen mugdi ah iyo isu yihiin buu markaan iman jiray hoteelada horta faraha badan magaalada Jigjiga ka jira ma jirin buu hoteelka marka degtana qofka kuugu dhow ee ku ag fadhiisa waxa uu ahaa dhahay qof dhalinyaro ah oo ciidan ah oo sirdoon ah oo adiga ku qadaadurayo oo su'aalo ku weydiinayo oo lagu soo diray oo inta ku baaraya waxa aad tahay halka ka timaaday waxa aad aaminsan tahay waxa aad ku hadlayso ku duubay يهابودا ما أنتنا أنت اعتماد سحر اعتماد يسن جيم بودو قف وحوي ويديني هل كارتاد مري هل كارتاد وحقدان هل كارتاد وحوي يقول خديسن هل كارتاد سيحاني هل كارتاد سعوني قاري كارتاد راعي dhaqaalaha iyo wixii aad marka aad wadaad xor u tahay inaad wax saarto isticmaasho wax kula hadlay ma jirto marka waan waxa weeye waa mugdi habeen mugdi iyo maalin bay isu yihiin wax la isbarbar dhigi karo ma jirto sheekooyinka cajiibka ah ee laga sheekeeyay waxa kamid ahaa oo dadka qaar deegaanka jooga ay ila wadaageen xilliga Cabdi waxa dhacday xitaa culimada oo kale qofka sheekha ah waxa weeye soo rabo Muuse waxa weeye u hadli karin waxa laga yaabaa in lagu qasbi jiray soo noloshiisu cabsanaya intii la dhaho diin Soomaali sheegin inuu dhaho waxa weeye haashe madaxweyne way sheegtay maalmaha kamid ah marka ciid bay had baa leeyahay ciida marka dadka hadlaya iyo qaabka ay u hadlayaan iyo waxa ay dhahayaan waxa laga soo go'aamiyaa madaxweynaha marka dadkii culimada markaas waxa weeye u yeeray madaxtooyada la tagay waxa la soo go'aamiyay dadkii hadlayay waxyaabihii ay dhihi lahaayeen iyo qaabka ay u hadli lahaayeen marka waxa jiray baa leeyay madaxweynaha ay aad saaxiibo u ahaan jiray markii hore oo madaxweynuhu tusaale ahaan soo qaadan jiray markuu ka hadlayo nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo dadkiisa u turaya oo waxa weeye lix jeclaala ah oo tusaale soo qaadan jiray oo dhihi jiray sida hebel oo kale waa inaad noqotaan nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo dadkiisa u naxaya ninkii madaxweynaha malaha isku dhaceen markii madaxtooyada la soo go'aaminay ciida dadka ka hadli lahaa yaa madaxweynaha ninkii aad u soo caay oo yiri ninkaas khaain weeye tuug weeye waxa weeye meel waxa weeye muxuu ahaa waa khaain wadan macnaha waxa weeye mar damba tusaale looma soo qaadan karo ninkaas inuu wadan yahay ninka tuug weeye khaain aad macnaha madaxweynuhu soo caay baa leeyahay dadkan aad buu caay jiray oo caayda aad buu ugu horreeyay listiga dadka hadlay waxa lagu soo daray nin aan marka madaxtooyada joogin oo ninkii in la caay aan ogeyn laakiin hore uu ogaa ninkii in la amaani jiray meeshii waxa la yimaaday ciidii baa la yimaaday dadkii hadli lahaa baa qofba mar soo istaagay ninkii marka saaka meesha aan joogin ee ninkii lagu caay laakiin hore uu ogaa jiray ninkii in la amaani jiray baa soo istaago mikrofoonka loo dhiibay markuu hadalkii khudbadii bilaabay wuxuu yiri waa in aad noqotaan tusaale ahaan ninkii hebel oo kale taa nin wadani mar ogeyn ninkan waxa weeye in saaka waxa weeye ninkan sidii madaxweyne waxa weeye u kala maatay oo aad loo soo caay ninkuna shoo malaha meesha uu fadhiyaa laakiin markuu ninkii amaanay buu Cabdi meesha fadhiyo madaxweynaha hoos foorsaday baa leeyahay nin kala soo kacay oo ninkii u yimaaday hadlaya wuxuu ku yiri inta afku dhaway wuxuu ku yiri saaka fiishta lagala baxay ka duul
ninka hadda amaanay intuu markii uu isbedelay yaa wuxuu yiri in uu meesha fadhiyo ninkaas yaaba xaraan ah waa isla goobta hadda uu ku amaanay ninkaas inuu meesha fadhiyo yaa xaraan ah inta marka cabsi uu abdi ka qabo yu hadalkaasi u leeyahay marka waa wax tusaale adag kamid ah waxyaabihii deegaankeena ka dhacay oo dadka qaar markaad weydiiso ay ku leeyihiin film buu ahaa film baa deegaankeena maaragtay ka dhacay xilligii waxa weeye abdi oo kaleeta dadku marka waxay ku sheegayaan hadda in kasta oo aysan qabin kalsooni 100% ah in maaragtay sidan ay ku sii socon karto oo ay dadku wali maan ku hayaan Ethiopia maadaama aysan jirin dawlad si dimuqraadi dawlad kale u bedesha sida maaragtay dunida ka dhacda in waxa weeye mar kale waxa weeye intuu isbedel xawli ku socdo hal marka inka oo kale intuu dhaco in waxa weeye xukuumadina tagto mid kan la ay timaado oo waxa weeye sidii waagii hore kale lagu noqdo bay dadku cabsi ka qabaan oo kalsooni 100% ma qabaan laakiin intooda badan waxa kaaga maqraati ka ciyaan deegaanka nabadiya waxa kale oo iyada jirta dawladda qaniinada markuu meel ka jiro wax uu xidha waxna waxa laga yaabaa inuu dilo talaabooyin dawladdu khaldana waa qaadi kartaa mid maaragtay saxsan waa qaadi kartaa waxay ku xidhan tahay qofka hadii la xidho oo la soo eedayo in maxkamad la geeyo cadeymihii la helo qofkaasi waxa weeye dadkii soo eedanayay ay maxkamadda yimaadaan kadib qofka hadii wax lagu waayo oo cadeymo rasmi ah la keeni waayo wax lagu eedeynayaan waxa maxkamaddu ay fasaxdo hadii waxa weeye qofkan cadeymo lagu helo oo dambi lagu soo eedeynay qofkaas maxkamaddu ay xukunto kolba dambiga markaas isaga oo galay waxa weeye ciqaabtiisa la mariyo marka xirxitaan macnaha waa jiraan laakiin ma badno dadku laakiin inta badan waxay ku sheegaan qofku in uu si xor ah u hadli karo si xor ah dawladdu u dhaleeli karo fikirkiisa uu maaragtay u dhiiban karo oo waxa weeye aad arkaysa xisaabtii mucaaradka oo dadkii la kulmaya oo hadlaya oo warbaahintii la hadlaya oo haddana maaragtay xagee u socotaan iyo maxaa saan u lahdeen iyo maxaa waxa weeye aan la dhahaynin waxa kale oo jirta xitaa in xafladaha laga wada qayb galo mucaarad iyo muxaafid waxa weeye la wada shaaho oo waxa weeye dadka shacabka inta badan markay arkaan mucaaradka iyo maaragtay dawladda oo hadallo kulkul hawada isu marin haya oo mabda ahaan kala duwan dadka labada dhinac kala taageersan waxay u qaataan dadka inay cadow isku yihiin markaas waxaad arkaysaa dadka shacabka labada dhinac kala taageersanaa ee taageerayaasha oo Facebook iyo aaladaha lagu xiriiro isku laynaya oo si xun isu karbaashaya oo aad u kala fog baad arkaysaa siyaasiyiintana intay hawada wax isu mariyaan bay haddana waxa isku milasan maqaad heble iyo hotel heble isugu marayaan waxa weeye wada shahayaano waa la swici war hebel ugu baadaleeyo waa la sheekaysan oo waxa weeye marka dadka laakiin waxay u arkaan markay warbaahinta hawada isu marinayaan hadallada kulkulul ee waxa weeye iyo maaragtay ama kuwa maaragtay xanaf loo ogolaatay siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafadka dadka waxay u arkayaan dadkan inay col xiira inay yihiin taayo ka tusaale qaadanaya waxa laga yaabaa labada dhinac ee waxa weeye kala taageersan siyaasiyiinta ama dawladda iyo mucaaradka in waxa weeye dagaal iyo halgan iyo hadallo xanafle iyo aflagaada iyo cay iyagu aad waliba u kala fog in maaragtay baraha bulshada oo ku dhaxmaro iyagoo xitaa ogeyn oo aan dareemaynin raggan si kasta u kala mabda iyo fikir duwan yihiin oo warbaahinta ay hadallo kulkul isugu mariyaan haddana inay wada shahaan oo ay wada cunaan oo ay maaragtay isugu yimaadaan waxa weeye meelaha lagu kulmo waxa kale ajiibka jigjiga ku arko waxa kamid ah jigjiga oo caasimada deegaanka ah ma jirto meel lagu aweysimo laba saac habeenimo hadii la gaaro waxa weeye dadku waxa weeye waa kala tagayaan nin walba u dhalmanaya sida tuulo dadkeedu uu miyiga xoolo dhaqato ku yahay caana ay keenaan oo ay maalinkii magaalada waxa weeye u soo suuq tagaan oo yimaadaan ka shaaheeyaan waxay ka samaysan sonkor ka qaataan raashin ka qaataan kadibna ay ka dhalmadaan casar dheer sidoo kale waxa weeye jigjiga oo caasimada deegaanka waxa weeye dadku ay fiid markay tahay loo kala seexdaa waana wax hore loo bartay inkasta oo ay jiraan dad oo maaragtay Jaina group oo kale oo dhalinyaro aha oo waxa weeye magaalada ka shaqeysto dadka dhaca haddana dadka waxa dhici karta qofka hadii uu maaragtay markaas la dagaalamo oo wax ay rabaan ay ka heli waayaan inay wax ku dhuftaan laakiin dadka ma dilaan dadka waxa way totally ma dilaan laakiin hadii aad la dagaasho oo wixii aad wadato aad u diido waa laga yaabaa inay wax ku yeelayaan inta ma ogi sida kale magaaladu waa xor laakiin dadku waxay la qabsadeen wixii jiri jiray wixii baa ku qufulay qofka marka xilliga hore uu dheelman jiray ma haddana dheelman marka magaaladu hadii xitaa la heli lahaa meel lagu qaxweeyo oo waxa weeye habeenkii lagu maartay aweysimo oo dadku ay maartay ku nastaan oo waqti asxaabta ay ku qaataan xitaa dakhli iyo dhaqaale xitaa waxa weeye soo gali lahaa dadka iyo magaalada laakiin ma jirto laba saac hadii la gaaro qofku waxa weeye ugu dambeeya bajaaj buu sii fuulaya oo uu sii cararaya inta kale tan maghrib iyo casar waxa weeye ay sii dhalmanaya internet oo kale marka aad fiiriso hoteelada marka fariisato
waxa weeye hal saac oo kale tii lagu siinayaa warqad hal saac internet ay isticmaalayso ka waran hadda hal saac ka badan fadhiyayso maal aan balan lahaa oo aan dad sugayay oo waxa weeye aan meel hotel fadhiyay ba waxa weeye balantii iyo dadkii aan la lahaa baa ugu yartahay 3 saacadood baan fadhiyay 3 saacadood ka badan ma markaa fadhiyay 3 saacadood waxaan dhameeyay 3 xabo internet oo foojara oo hal saac lacag ma qaadayo laakiin waa inaad wax dalbataa hadii kale loo siin maayo maalmaha kamid ah aniga oo markaas soo qadeeyay aan hotel nimaadnay inoo dhalinyaro aan ku sheekaysan markaan soo fadhiistay waan wiil dhalinyaro maqaad ka shaqeynay waxaan ku iri waxa isisaa biyo aan cabo yaan u baahanahay internet nisi markaas wiilku wuxuu igu yiri hadii aadan wax weyn iyo cunto dalbanaynin waxa weey internet lagu siin maayo waa maxay oo sharciga meesha ayaa dhigaya maamulka waxay dhahaan qofku hadii uu san wax dalbanaynin waxa weeye yaan la siinin internet marka internetka iyo waxa isku xidhan iyo wax dalbasho waxa aad dalbanayso tayadiisa dad biyo dalbanayso internet waxa weeye lagu siin maayo ila de la saka ixtiraamo markaas waxa weeye qof muxtarim ah oo lagu ixtiraamo ogi internetka marka waxa laga yaabaa in lagu xisaabiyo hal saac lagu siina hal saac oo ka dhamaana adiga danabad leedahay waa hadana aad dhahdo hadii marka 9 saac meelaha la gaaro kale waxa lagu leeyahay waxa sugaysaa casarka inta la gaarayo sababta 10 saac markii la tukado kadib waxa weeye soo baxaya hadana waxa jirta maqaayadaha qaar marka tagto kale casarkii duhri kadib hadii aad shaah dalbato waxa lagu leeyahay waxa dhici karta in lagu dhaho waxa maqan ninkii shaah karinay qowmiyada kale ku soo jeedaba mushinti waa la dabina isagu waxa uu iska rabo waxa meel bu'aada hawlo kale laga yaabay shaqo kale ma soo haysto marka waxa lagu leeyahay ninkii waa maqan mushinti way santahay marka waxa sugaysaa dhawaan markii la gaaro 10 saac kadib markuu soo laabto ya waxa weeye shaah la karinaya markaas waa helaysaa baa lagu leeyahay marka aad fiiriso marka wax badan baa dadka waxa weeye lagaga horeeya oo gumaysigii ay ku hoos jireen iyo maaragtay say ahaayeen iyo sidii maaragtay dadku ay isaga noolaayeen bay wax badan la qabsadeen marka qofka waxa weeye meelaha kale ka yimaado wadamada dimuqraadiga ka yimaado meesha inuu la qabsado waxa weeye waqti ku qaadanaysa waliba wuxuu dareemayaa qofku waxa weeye wax badan inay ka maqan yihiin markaas waxa mararka qaar laga yaabaa in qofku xitaa safarkiisa uu soo gaabiyo oo meesha uu san ku noolaan karin sababtoo ah marka halkan joogto waxaad helaysaa internet 24 saac aan maaragtay inuu de cillad ku timaado moogi aan laaban laakiin internet dhankaas waxa foojar lagu siinaa oo dhim marna waxa weeye u kaada xilligaas sug haddana hal saac intii lagu salkaysa markuu ka dhamaado waxa weeye lagu dhihi halkan haddana dalbo halkan haddana lagu keeno haddana ka dhamaado waxba wixii ama hawshaada aan fushin marka waxyaabo badan oo de aad marka qofka wadamadan dimuqraadiyadu ka hirgashay qofkii ku noolaa markuu xagga tago oo san la qabsan karin oo uu cuntamaynin oo maartay ciriiri iyo uu dareemayo maartay waxa weey wax badan yaa jira laakiin deanku wuu soo kabanaya nabadgelyo aad u fiican baa jirta xasilooni baa jirta dadku waxa weey cabsi la'aan bay maartay ku nool yihiin si xor ay maartay dadku waxa weey fikirkooda ay u cabiraan oo ay u hadlaan dawladda waxa weey meelaha la fadhiya laga dhaliilaa oo waxa weey maqaayadaha iyo fadhi ku dirka laga dhaliilaa oo waxa weey مسؤولينتي الدولة ومقالة إسكت حصل على أركيسا وزير مقالة إسكت حصل على هوتيلات إيمانية قاعد أركيسا سمارتي وحوجا إفعالة إسبدل أو مارتي مقداجة لكن إلى قرما أيوسي صعون كرابي دتك إسويدين يعني كدور شوي كان يوحنا ضيق دعان أو حالات السنة كوسي سعوده أو على سنة يدقلنا أي جوكسدان أو سنة هذا أو كوسي سعوده دتك من سيهين إمارتي مركز دميس وحسوها جدا بل وقدام بينت إلك عصو أنا إن عاد هل كنت شوكتي مركز حزبيات معارض وكهرين دور شوي كان مقارنة وين جوي xogaga limadaada marka fiiriso dadkii aad soo aragtay inay wali lugna dir lugna baqa ahaayeen oo dawladda Itoobiya inay markale hadana si kale u isu bedeshay ay ka cabsanayeen xisbiyadii mucaaradku ay saaxadii baneeyeen oo xukuumadii kaliya hadda ay ku soo hadhay soo kuma muuqato jugjug meesha ay joog waan ku sheegay oo markii horena waan ku sheegay maalweetana waan sheegay dadku 100% wixii dhacay أما نمرجية هذا جبتها أما إسبدل كي دعي ماكي وحوي ده واحد بدن أو إسبدلي أو نبتجليدا يحرية نواء جيران لكن بقول كل سوني وحوي جرنتي ما هيستان أو إنسان الوسيس عندنا ما هيستان وعمسين إني مارت إسبدليس تصالنا وانكسينا يا هذا أنا اللي فكر لما كل جالس وقاعد أو حزبي هذا وجودن بيجي يدا أو مركز الشركة أو الصعدة أو جان كقاعدة عادة
doorashada inay ka haraan aha waxa weeye uu socdo yani aan soo baxay laakiin xisbiyada kale sida FEB oo kale waan joogay oo waxa weeye mas'uuliyiinta qaar kamid ah saragnay oo waxa weeye ii sheeg waliba go'aan inay qaateen oo ay ku dhawaaqeen markii dambana inay doorashada ay ka harayaan iyagoo markaas kalsooni darro ka muujinayay doorashada iyo xisbiga BB inuu ku guuleysanayo horta xisbiga BB da waa xisbi abi wata way abina waxa ugu tala galay in doorashada uu ku guuleysto waxa weeye daba iyo dacad meel kasto maanta wadanka ah xisbiyada mucaaradka iyo waxa weeye jabhadii soo dagaalami jireen in wadanka ay wax ka qabtaan abi raali kama aha abi raali kama aha xisbiye mucaarad ama ururo soo dagaalami jiray ama jabhada soo halgami jiray inay wax ka noqdaan مسؤولين أو الرضا معارض كيحزبية سو دقالم جري كمدا يعني أنو إنتان لفر يستي بانكو يقول فكر نوع عاصة هي جري ما قبتان هابده إن وحوي لكن وحدعي كرت سعر ولا يصير جري يمار مدام دقال لا يكفرين لكن دول بسيطة ولا يسوق سارية سمعت وحيابها لا يسوق ذيو قرشها بحاجة جري إن وحلوص يصير معارض كأمارة وحلاقة جارسية دولة سعر ولا يسوق ده لا يسغير لكن إن حبنا وين بوسس وين يمارة ما لا مهمة أي معارض دولة كقبتان أيضا مجلس وحدعنا معه dadka qaar marka waxa weeye waxa loo baahan yahay inay fahmaan meesha in Ethiopia ta kolban qofkii markaas waxa weeye ugu sareeya ee wadanka maamula wixiisa u baa soconay isaga u baana doorashada ku soo baxaya marka intaas in la fahmay ahayd marka xisbiyadan de markii hore iyagu macnaha waxay islahaayeen de tartan doorashada dhici aad ka qayb gashaan bay islahaayeen laakiin ma aysan ku fikirin meesha in Ethiopia ta oo waxa weeye xisbiga marka wadanka maamulo ugu tunka weyn waxa weeye dawladda marka hogaaminayeen in meesha uu ku soo baxayo oo dad kale tan uusan waxba u ogolaan inaysan ku fikirin waa dhici karto oo waxa arkaysa on xitaa in dad badan oo mas'uuliyiin xitaa baasaboorradooda aysan ka tanaasulin Ethiopia qofka haduu wax ka noqonayo waa in baasaboorkiisa uu ka tanaasulo marka baasaboorka uu ka tanaasulo waxa weeye musharax noqon kara marka intooda badan sababta ka tanaasulin waxa weeye kalsooni darro jirta marka inaysan waxan sii socon karin inaysan doorasho xor ah dhici karin iyo lafskooda waxa weeye waa ay ogaayeen marka de abi iyo BB madama iyagu ay xalaalaysan wixii oo ay ku wadaan si boqortooyaha wadanka inay ku maamulaan waxa weeye tobanka sano soo socda waxa weeye waa qaabka iyo qorshihii markii horeba dhignaa way xisbiyada mucaaradkana hadda markii ay fiiriyeen waxay fahmeen BB wadanka iyagu ay doonayaan inay maamulaan sanadaha soo socda laakiin qorshaha ah waxa aad waxa way loo hadalhayaa in bal mucaaradkan maadaama marka hadda ay doorashada ka haran oo kale ay jireen waraaqo badan oo ay u gudbinayeen waxa weeye caalamka iyo hay'adaha kale oo ay u sheegayeen doorasho xor inaysan jirin wax noocaas ah culaysyadaas si dawladda ay isaga yareyso in iyagana loo qabajiyo dawladda ayaa wax leeyin ka siinaya dawladda meelgaal dhisaya marka ayr waxa weeye waxyaabahan iyo talaabooyinka qaadaysan waxa weeye hoos u dhiga awoodna mucaaradku waxa weeye wadanka kuma laha marka aad fiiriso sababtoo ah hadee ninka marka dawladda maamula ee waxa weeye ciidankii gacanta ku haya yaa awood leh mucaaradka xitaa dad shacbiyada taa lahaan leedahay meesha waa Ethiopia oo waxa weeye ma helaysid waxa weeye awoodii iyo waxa weeye qorshihii aad ku hirgeli lahayd iyo maaragtay in aad si xor ah waxa weeye u dhaqdhaqaaqdo ama waxa adiga marka aad rabto aad hesho ma helaysid marka qofka maamulo ba awood iska leh waa tahay wariye barnaamijka casaadi aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa wareysigeena gaarka ah oo aynu ku eegaynay xaaladaha dowlad deegaanka Soomaalida inta aynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe aniga wariye barnaamijka caso isku duuban oo kaga sii tagayna salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh